waxaa sharaf weyn noo ah in uu soo xidhmayo tababarkii uu socday macallimiinta kubadda cagta ee heerarka kala duwan ee gobolka Gabiley kuwaasoo ka socday magaalada Gabiley Wajaale Allay Baday Arabsiyo iyo macallimiin kale oo iyagana tababarkaasi uu ka baaqday oo ka socday Hargeysa oo tiradoodu ay ku dhowdahay 60 macallin hawshan waxaa soo qaban qaabiyay isla markaana fulinaya xiriirka kubadda cagta Somaliland oo kaashanaya wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha tababarkan ujeedadiisu waxay tahay waxa laga soo qabtay gobolka Maroodi Jeex oo ay ka soo qayb galeen oo ay tababarka dhamaysteen 84 macallin waxa laga soo qabtay gobolka Awdal magaalada madaxdiisa Boorama waxa laga qabtay Sool waxa laga qabtay magaalada madaxdiisa Laascaanood sidoo kale Sanaag Ceergaabo waa goobtii shanaad ee laga qabanayo gobolkii shanaad waxa hadhay gobolka Saaxil iyo gobolka Togdheer oo iyagana la fulin doona hadii la ilaa ujeedadeedu waxay tahay in la helo macallimiin tayo leh aqoon leh oo layli kara kooxihii kubadda cagta ee la garanayay dhinaca aqoonta iyo dhinaca akhlaaqadaba waxaana wasaarad ahaan hadda kadib noo sharci ah macallin aan shahaado haysani in aanu noqon doonin macallin qaybaha kala duwan ee ciyaaraha kubadda cagta kubadda kolayga ciyaaraha fudud iyo dhammaan ciyaaraha kaleba waxay arrintan keeni doontaa in ay noqoto dhalinyarada u noqoto shaqo abuur waxay keeni doontaa in ay noqoto professional dad takhasus u leh qaabka tababarnimo isla markaana sii kororsan doona aqoontooda shahaadada ay iminka qaadanayaan waa level 1 ama darajada koobaad darajada labaad iyo darajada saddexaad baa u hadhay waxa kale oo nidaamkaygu yahay labadii sanaba mar inta tababarka la qabto tababaradu way socon doonaan laakiin shahaadooyinka waxa la bixin doonaa labadii sanaba mar insha Allah biidmillaahil kariim cidda hadda seegtay waxa ay dafcadda labaad gali doontaa 2 sano kadib insha Allah khayr baan rajaynayaa Gabiley waxaan uga mahad celinaynaa maayarka isuduwaha gudoomiyaha xiriirka gobolka shaqada fiican ay nala qabteen waliba dawladda hoose wax badan ayay naga kabtay sidii loo gudan lahaa macallimiinta oo ay dejiyeen guriga martida iyo waxyaabihii kale facilitieska ah bada saabkii oo ka nala jooga ku xigeenkii waxaan aad iyo aad uga mahad celinaynaa mas'uuliyiinta gobolka Gabiley heer gobol iyo heer degmaba sidii quruxda badnayd ee ay nogala shaqeeyeen in ay arrintan fusho waana soo dhaweynaynaa wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh